labaatan maleeshiyad al-shabaab ah oo lagu dilay duqeyn ciidamada dowladda Soomaaliya ka furiyeen gobolka Hiiraan Jubbaland oo sheegtay in ay burburiyeen fariisimaha al-shabaab lahaayeen Jubbada Hoose kadib howlgalla saf ballaaran ah Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo ka wada hadlay cilaaqaadka ka dhaxeeya iyo amniga xilli Abu Dhabi lagu eedeeyay fargelin xooggan oo ay dalka ku hayso iyo UK iyo Soomaaliya oo wada hadal ka yeeshay la dagaalanka al-shabaab iyo taageerada howlgalka Awsam dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shareecada islaamka qaybaheeda kala duwan waxa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibn Abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxaana kamid ah culuumta shareecada oo ilaa 6 qaybooda barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Quraanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka saxidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Quraanka wixii faahfaahin oo dheer waxaad kala xiriirtaa nambarada shaashada kaaga muuqda markale soo dhawaada daawadayaal waxaan ku bilaabi doonaa wararkeena caawa ku dhawaad 20 maleeshiyadka al-shabaab ayaa lagu dilay duqeyn ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka fuliyeen gobolka Hiiraan hay-adda sirdoonka Soomaaliya NISA waxay sheegtay iyadoo kaashanaysa saaxiibada caalamiga ah in ay fulisay howlgal qorsheysan oo ka dhacay isgoyska gayacad u dhow deegaanka Mubaax ee gobolka Hiiraan howlgalkan ayaa la sheegay in lagu dilay 15 xubnood ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo isugu jiray maleeshiyad iyo horjoogayaal halka 5 kalena lagu dhaawacay howlgalkaasi intii uu socday kaasi oo la sheegay in si culus ay u dhaawacmeen howlgalkan ayaa waxa uu dhacay 3 mar oo kala duwan intii lagu guda jiray waxaana uu lagu beegsaday baa la yiri koox al-shabaab ah oo abaabuleysay sida hadalka loo dhigay in ay laga abaabulaya degmada Aadan Yabaal ee gobolka Hiiraan sidoo kale deegaanka Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha Dhexe kuwaasi oo qorshahoodu ahaa in ay gurmad ahaan ay ugu biiraan kooxda kale ee go'doonka ku ah deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan inkasta oo kooxda al-shabaab ay isku dayday in ay ku dhumaaleysato dhulka hawdka haddana 3 howlgal ayaa waxa uu ku soo dhamaaday sida NISA ay sheegtay bayaankeedana ay ku sheegtay mid guul buuxda ah iyada oo la xaqiijiyay dhimashada 15 xubnood iyo dhaawaca 5 kale howlgalkan ayaa waxa la sheegay inuu yahay mid weli sii soconaya waxaana socda raadraac lagu hayo baa la yiri sida hadalka loo dhigay firxadka maleeshiyadka baxsadka ah ee ku kala firxaday goobta howlgalka intii uu socday NISA waxay sheegtay in howlgalkan uu ahaa mid xoogan waxaana ay tilmaantay in la sii wadi doono waxa howlgalkan ku soo aadaya 72 saacadood gudahooda kadib markii howlgal kale oo sidaan kale uga dhacay gobolka ay ciidamada NISA sheegeen in lagu dilay maleeshiyad ka tirsan kooxda al-shabaab markaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu safiirka Imaaraadka Carabta u fadhiya Soomaaliya Ahmed Jamca waxa uu kulan muhiim ah kula yeeshay xafiiskiisa magaalada Muqdisho kaasi oo lagu muujiyay sida ay uga go'an tahay labada dal xoojinta iskaashiga istiraatiijiyadda iyo wada shaqaynta dhinacyada amniga horumarka iyo maalgashiga sidoo lagu sheegay bayaanka rasmiga ah ee kulankaasi labada dhinac waxay carabka ay ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dardargeliyo xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya iyo Imaaraadka taasi oo lagu tilmaamay talaabo hor leh oo dhinaca wada shaqaynta kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada socda ee lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhaxeeya si kor loogu qaado xasiloonida gobolka iyada oo la adeegsanaya baa la yiri iskaashi dhow oo joogto ah si kastaba ha ahaatee kulankani waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo warbixin cusub oo horaantii bishan soo baxday ayna daabacay wargeyska Africa Intelligence lagu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay si qarsoodi ah ay uga dhigatay garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso xarun istiraatiiji ah halkaasi oo lagu kaydiyo hub diyaarado aan duuliye lahayn oo drones ah iyo ciidamo ajaanib ah oo loo dirayo dagaalka ka socda dalka Suudaan gaar ahaan kuwa RSF warbixinta ayaa sidoo kale lagu xusay in garoonka Boosaaso oo ah mid si rasmi ah loogu adeegsado duulimaadada dadka rayidka ah haddana loo isticmaalayo shixnado iyo howlgallo qarsoon taasoo su'aal ay ka keentay doorka Imaaraadka Carabta ee gobolka ujeedooyinkiisa dhabta ah ee ka dambeeya howlahaasi oo ka wado gudaha qaarada Afrika gaar ahaan geeska Afrika Imaaraadku waxa uu si rasmi ah u beeniyay in uu hub uu siiyo RSF isaga oo sheegay inay yihiin howlaha uu ka wado Afrika kuwa bini aadantinimo
haatana Jubbaland haddii aynu aadno Jubbaland waxay sheegtay in ay burburisay fariisimo al-shabaab ay lahaayeen kuwa ku yaala gobolka Jubbada Hoose kadib howlgalla saf ballaaran ah oo ay fuliyeen ciidamada maamulkaasi. Maamulka Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada ammaanka gaar ahaan daraawiishta Jubbaland ay ku guuleysteen burburinta fariisimo muhiim ah oo ay kooxda al-shabaab ku lahaayeen goobo kala duwan oo ka tirsan Jubbaland. Fariisimaha la burburiyay ayaa la sheegay inay ahaayeen xarumo istiraatiiji ah oo al-shabaab u adeegsan jireen sida hadalka loo dhigay qorsheynta weeraro argagixiso, tababarada maleeshiyaadka iyo kaydinta hubka. Howlgalka lagu burburiyay saldhigyadan ayaa qayb ka ah olole ballaaran oo ka socda guud ahaan Jubbaland oo lagu beegsanayo kooxda ku dhumaalaysanaysa deegaanada la beegsaday. Jubbaland waxay sidoo kale ay ku boorisay shacabka in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga hortago bay yiraahdeen khatar kasta oo amni darro ah ayna qayb ka noqdaan sugidda nabadgelyada deegaanadooda. Maamulka Jubbaland waxa uu sheegay tilmaamane in ay qayb ay ka tahay dadaaladan howlgallada ballaaran ay ka wadaan gobolka kuwa lagu xoojinayo sidii amniga loo sii xoojin lahaa. Dhanka kalena maamulka Jubbaland waxa uu ka warbixiyay howlgallo xooggan oo ciidamada ammaanku maanta ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo lagu sheegay in halkaasi ciidamada ay howlgal ka fuliyeen laguna beegsaday maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwa uu ku yaala gobolka Jubbada Hoose. Warbixin ka soo baxday Jubbaland waxaa lagu sheegay in si xirfadaysan ay ciidamadu u beegsadeen goobihii al-shabaab ay ku dhumaalaysanayeen kuwaasi oo ku yaala deegaanada Libaxley iyo Barjaale ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale bayaanka waxaa lagu daray in ciidamadu cagta ay mariyeen xubno kamid ahaa maleeshiyaadkaasi iyaga oo si buuxda ugala wareegay deegaanka. Goobaha la weeraray oo ciidamada Jubbaland ay howlgallada ka fuliyeen ee kala ah Libaxley iyo Barjaale ayaa horay waxay u ahaayeen meelo kooxdu ka qorsheyn jireen sida la tilmaamay falal amni darro ah. Hase yeeshee ciidamada Jubbaland ay tallaabo degdeg ah ay ka qaadeen taasi oo keentay bay yiraahdeen in al-shabaab laga saaray halkaasi. waa tahay ugu dambeyntiina Soomaaliya iyo UK waxa ay ka wada hadleen la dagaalanka al-shabaab iyo taageerada howlgalka AWSOM. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cabdi Cali ayaa maantay magaalada Muqdisho ku qaabilay safiirka UK ee Muqdisho u fadhiya Charles Keng, waxaana kulankooda diradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga dhinacyada amniga, siyaasadda iyo horumarinta. Labada mas'uul ayaa si qoto dheer waxaa la tilmaamay inay uga wada hadleen xaaladda kala guurka amniga Soomaaliya, gaar ahaan taageerada UK ee howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya AWSOM oo howlgalkii hore bedelay ee ADMIS. Wasiirka iyo safiirkaba waxa ay sheegeen kana wada hadleen muhiimadda ay leedahay in UK ay sii wado taageerada ciidamada nabad ilaalinta si loo sii xoojiyo dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo in la adkeeyo xasiloonida dalka. Kulankan ayaa sidoo kale la sheegay laguna la faguray sidii loo sii adkeyn lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo UK, iyadoo labada dhinacba ay muujiyeen go'aanka adag ee ku aadan xoojinta wada shaqaynta iyo horumarinta danaha guud ee labada dal. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararkii caawa ee Soomaalida oo idinkaga imaanayay stuudiyaha Muqdisho ee HBN. wararkeena waxaad kala socon kartaa boggeena kala duwan ee Facebook, YouTube, X, Telegram iyo TikTok. HBN Online TV ayaad nagala socon kartaa, sidoo kale bogga internetka aan ku leenahay hbnonlinetv.com. intaan ku kulmi doono wararkan kuwa kan xiga sidaas iyo nabadgelyo. bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh? wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga, waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimistan ballaaran. waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday, waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh. haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah, la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa Taqwa Xajan Cumra adigoo kala soo xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaga muuqda. ku soo dhowow Safari Remit, warkii ugu mudnaayo weligaa aad maqashaan hadda ku warramaya ee kaalay u hesho Safari Remit. haddii aad ku nooshahay dalka UK, Safari Remit waxay kaa caawinaysaa inaad lacag u dirto ehelka kuu jooga geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia,
suudaan soud suudaan tanzaniya iyo weliba dalka turkiga si fudud oo qiimuhuna jaban yahay macaamiisha cusub waa khidmad la'aan 3 jeer ugu horreysa lacag diristooda isticmaalka safari remit waa mid aad u sahlan waxaana kaa xigta inaad booqatid www.safariremit.com waxaadna ka geli kartaa laabtoobkaaga mobilkaaga ama iPadkaaga meel kasta oo aad joogto safari remit hadda adeegeeda waxay ka bilowday dalka UK mar dhowna waxa ay ku baahi doontaa dhammaan wadamada Yurub iyo waqooyiga Amerika safari remit rugta lacag dirista ugu fudud baahi tiraha baahi loo qabay safari remit